إنه ما فكر كان يا ما كراعي ما تجيد يمدحونه في هذانا مين اللي تعقليه مسائل والله كذا الناس وفوله إلا تعقليه والله قله لكن إن صلادين تنصت تقول سوفر قليه التاكي علمين waxaan gaar u leenahay in baan qaadanay runtii ummadayla muusana fikirkiisana qaan oo ilaa dee waxaan soo hayn dhalinyaradii hore muuse markuu maagan yahay keligii tashan maayo dad buu la tashanaya arrinkuu doonayo ilaa uu dadka la tashado sidii nin nagala sii dayn maayo waa nin degan وقت دير ونسنا قال موسى موسى كيغان بابي لكن أوتي كرسي صار أنا وهمت أنا كيغان لو تكلم مالي أنا بدي كم أوي أولاد هذا الذي سلطان حسن وهلك كلها هم لين ما أيو أنت هذيك أيوه لبدينا هنا حق شجعت لبها حق بدك علي إلا أيام البورة ما إلا أيام من قريه وين تلقفصت وين العشور تكون ردونته إلى ما هنيا سورنا قليميس هذا يكون سورة قلي سنة عندنا حواء ما هني بقول الله عندنا حواء ما هني شجعان وتقول عليس شجعان horta sheegaanta ayaa lagu hanjabaya waa wax ka qaadaysa ilaa adinka hadalkaas wuxuu ahaa meesha ka shirka iyo hadalkaas wuxuu ahaa mid hanjabaada wuxuu ahaa mid tiiqtiiqsiya wuxuu ahaa mid kibira wuxuu ahaa mid foolxuma cidda loogu hanjabayo ma la garanaya annagu waxaanu nahay ciddii aad sheegaanta ka samaysatay ee sideedda reer shacisaaqay reer doodkaad sheegaysay bay isugu tagteen ee waddadaa kaa saaray baanu nahay adigoo sheegaan iyo wax walba ah adigoo samada wax nin Soomaalida samada ka dhul jiifay aniga ugu horeeyay waqtiin oo dayarad ka afduuba wallahi inaan dayaradaha diqa ku fuli jirtay badnimo intuu istaago Afrikaan wax ka afduuban aniga ugu horeeyay markabkii ugu horeeyay kooxda loo jeebada ka qabta dulo ka tagay cir iyo badna waan gaaray maanta ninkeedu hanjayso waa ninka horta waxaan kaloo aan maqlaay isagoo hanjabaya Puntland iyo horta dagaal Puntland iyo Soomaaliland dhaxaya ma jiro dagaalka waxa weeyaan dagaalka laga ka dhaxay uu leeyahay Sultan Xasan ka hadlayo ee uu ka hadlayo Booba Yuusuf Ducaali anagu haddaan nahay beeshan ka soo jeedo dhinac kama nihin dhexna kama nihin dhanna kama nihin u lug leeyahay galeysana waxaan oran lahayn wardhiig Soomaali maanta la daadiyaa ma banaana waajibna maaha Soomaali cadow maaha diintan oo ummadda reer Soomaaliland kula dhex wareegaya ficilo iyo hadallo naxdin leh oo ku salaysan kala fogeynta kala qaybinta kala qobqobidda bulshada reer Soomaaliland ee walaalaha bulshada reer Soomaaliland uma baahna suldaan u abtiriya waxay u baahan tahay labada dale aan sidoo way isku dhaqan labada وبنت يسوبلنا وأنا حدود ضحيت وحكيت مركوا حلو يسجل اليوم إذا قالوا سيروا كنت ما فينا Somaliland uma baahna Somaliland uma baahna suldaan cadowga Somaliland u shaqeeya isagoon garanaynin cidda uu adeegayo sida awgeed waxaan ugu baaqayaa salaadiinta iyo siyaasiyiinta reer Somaliland ee caadaystay inay ka shaqeeyaan falal kullid ah wadajirka ummadda reer Somaliland inay ka waantoobaan ficilada foosha xun iyo hadallada foosha xun ee hawada isu marinayaan ee ay maqashiinayaan dhagaha nadiifta ah ee ummadda reer Somaliland qulubtooda inay wax ku yeelaan iyo wadajirkooda ay doonayaan inay ka waantoobaan isla markaana waxaan ku boorinayaa hay'adaha sharciga iyo ciidamada amniga in sharciga la horgeeyo cid kasta oo ka waantoobi weyda
ficilada iyo hadallada xun ee bulshada reer Soomaaliya lagu kala dilayo ee hawada la isu marinayo hadduu bariga Somaliland joogo iyo hadduu galbeedka Somaliland joogaba bulshada reer Somaliland waxaan ugu baaqayaa inaanay dhag u dhigin ragga aan soo sheegay ama siyaasi ahaad ama suldaan siyaasad barada ha ahaadee inaanay hadalladooda dhag u dhigin anoo aada ugu ammaanay shacabka reer Somaliland inay ka soo gudbeen marxalado fara badan runtii oo aad iyo aad halis u ahaa kagana soo gudbeen wadajir iyo iyagoo arrinkoodu ahaa geedigu ha socdo walkilaabu tanbax ciiduna ha ciido